من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة نكي مساجد دسة كقيب قاطة إلهي وحما ركتي ودسها يا جنة وقد دسها يا قري kani waa masaajidka Al-Taqwa ee xarada qaxootiga ee Dhagaxley dhismaha masaajidka waxaa lagu dhisay deyn sida ay culimada diinka xarada qaxootiga ee Dhagaxley inoo sheegeen lacag dhan 700,000 ayaa lagu dhisay masaajidka oo u dhiganta $7,000 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين meeshan aan taaganahay waa masaajid ka la yiraahdo Masjidu Taqwa ayaan joognaa masaajidkaas lacag waxa soo hadhay aad u tiro badan anaga hadda markaan iska hadlayno oo gaaraysa 700,000 oo Kenya waa $7,000 meelahaas aan filahay marka insha Allah ta'ala هذا حديث النبي وحوها عليه الصلاة والسلام وتعاونوا على البر والتقوى آيات القرآن كايد وحي هيد وتعاونوا على البر والتقوى وروناق إيوه الله كعبسك اسكوه كالمية جوجنا مسجد التقوى مسجد كيالو دلك كينيا خاصة نحريها قحوتيغا سيجارهان حرد اللي يراه دغحلي looga soo qaaday lacag deyn si dadkaas masaajid u helaan ayadoo dadka ahlu khayrka ama muxsiniinta ah looga dalbahayo inay masaajidkaas deynka lagu lahaa ay bixiyaan lacagahaasna muddo yar oo kooban loo qabtay oo masaajidka waxa lagu dhisay deyn u yahay 700,000 oo lacagta Kenya dalkaanan joogna ah hadii dollar loo bedelana $7,000 ah ayaa lagu leeyahay masaajidka baahiyo fara badan buu iska qabaa masaajidku oo waxa kamid ah xagga korontada wadan aad u kulul ayaan joognaa marwaxadihii iyo waxyooyinka lagu qaboojinayo ayaa waxa kamid ah gogosha lagu tukanayo masaajidka aan oolin ahbaabta iyo ikhwaanka meel bay joogaan ahlulaahiga muslimiinta muxsiniinta ah diba iyo muxuu ahaa gudaba insha Allah ta'ala waxaan ka codsanaynaa siday culimada horeba iclaamiyeen sheekheena Sheekh Salaad iyo macalinkeena macallin dirir in masaajidka deynta lagu leeyahay ka soo bixiyaan masaajidka si hadii loo oga deynta lagu leeyahay aad bay u yar tahay oo yaan dadka dibadaha jooga oo kale ama ninka wax haysta oo waxa aad u yar oo $7,000 ah inta hadda uu sii baahan yahay oo baahida ah markii lagu darana 10,000 iyo ka badan bay noqonaysaa oo gogoshiga ku jirto oo iftiinka uu ku jiro oo ku jirto muxuu ahaa korontadii ay yaani kamid ahaayeen baashi la oran jiray muxuu ahaa marwaxadii wixii lamid ah marka insha Allah ta'ala muxsiniinta gabdhiya rag iyo dumarba waxaan ka codsanaynaa inay masaajidkaas u soo gargaaraan maxaa yeelay nabigeena wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam man nafasa kurbata akhihi nafasa Allahu kurbatahu yawm al-qiyamah walaalkii yaani kurbadiisa ninkii fayda ilaahay baa subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaamo kurbadiisa faydaya dhanka kale masaajidka howlihiisa ayaa qabya inkastoo cimilada xiriyaha qaxootiga ay tahay mid aad u kulul haddana waxaa loo baahan yahay jaayido ama roogi salaada lagu tukan lahaa marwaxadihii la isticmaali lahaa iyo sidoo kale soolaradi walaalaha muslimiinta muxsiniinta meel walba ee caalamka ka joogaan ayaa laga codsanayaa wax Allah waxay awoodaan inay ku sadaqeystaan masaajidka Al-Taqwa ee xarada qaxootiga ee Dhagaxley waxaan rabnaa marka muslimiinta caam ahaan iyo khaas ahaan intii annaga codka annaga iyo muuqaalka annaga garataba inay masaajidkaas culaysyadiisa ay wax badan naga fudaydiyaan ama naga wada qaadaan masaajidku hadda ma laha gogashii loo baahnaa oo la dhihi jiray rooga oo qiimaha badnayd ma laha korontadiisii iyo wixii soo dhawaa iska nusqaansan yihiin asagiina waxa lagu dhisay deyn waay intaasoo dhan marka waxay nagu keentay inaan soo bandhigno muraadka iyo danta aan leenahay muslimiintana aan ka leenahay ilaahay baan maaragtay u bandhiganaynaa awalan midda labaadna hadda waa midan aayadda quraanka hadda aan u soo qaadanayo ilaahay u lahaa wa tacaawanu cala albirri wattaqwa waxaa la doonayaa muxsiniinta marka dadka ilaahay wuxuu dhiibay meel ay joogaanba ninkii markaa khayr doonahayo oo aakhiradiisii iyo adduunyadiisa markaa khayr la doonahayo oo maaragtay meel uu wax kula baxa raba halkan aan joogno baahidaas ka jirta oo dadka ahlu khayrka oo ilaahay uu wax siiyay aad looga dalbanayo inay ka soo qayb qaataan marka masaajidka deyn culus baa lagu leeyahay waxa madaxa lagu soo qaadayna waxa weeyaan dadka muslimiinta oo mu'miniinta ah oo muxsiniinta ah in ay masaajidkan akoonadooda u furaan
oo ay jeebabkooda u soo furaan oo wax alla wixii ay heli karaan ay ku soo ridaan wey. dhismaha masjidka fadligu uu leeyahay ayaa inoo sharaxayaan qaar ka mid ah culamaa diinka xerada qaxootiga ee Dhagaxley. nabigu muxuu yiri sallallahu alayhi wasallam masaajida tarqiibka iyo boorinta uu noogu boorinaya dhismaheeda awgeed yaa wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam man bana lillahi masjida man bana masjidan ninki masjid dhisa xadiidka saxiixaanka lafdigiisu man bana masjida ninki masjid dhisa yabtaghi bihi wajha Allah isagoo dhismaha maska uu dhisahayo ku raadin haya inuu ilaahay ridihiisa ku helo inuu ilaahay ugu dhawaado subhanahu wa ta'ala waa muhiim weeye innamal a'malu binniyat sida uu nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam noo yiri kolkaanu khayraadka qaban hayno inaynu niyada iska toosino oon dar ilaahay ugala jeedno waa muhiim weeye aan ka qayb qaadana dhismaha beedka Allah labax wax alla waxaad awoodo maanta waxaad la baxdo biri adiga ayay ku anficiyaan daawadaha imikan ugu horeeyo in dhaahanayo si kastaba ha ahaatee masjidkan ayaa baahi badan loo qabay sida ay noo sheegeen dadweynaha. Xasan Kaafi Badacas 24 TV xeryaha qaxootiga Dadaab.